garoonka kubadda kolayga ee magaalada Laascaanood oo xidhnaa muddo ku dhow 30 sannadood ayaa dib loo furay kadib dayactir ay ku sameysay dawladda hoose ee degmada Laascaanood waxaana kormeer ku tagay garoonkaasi oo ciyaartii ugu horeysay ay ciyaariyeen kooxo isugu jira dhalinyaro ganacsato iyo suxufiyiin maayirka degmada Laascaanood iyo isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool Maxamuud Aadan Askar wuxuuna ka warbixiyay furitaanka garoonka kubadda kolayga ee magaalada Laascaanood suganahay galabta garoonka kubadda gacanta ee basketballka ee magaalada Laascaanood oo runtii ay dib habeyn iyo dhismo qurux badan ay ku sameysay dawladda hoose ee degmada Laascaanood runtii waxa galabta ka socota ciyaartaas dhabarkayga ka muuqata oo ay dhalinyarada xiisaysa kubadda gacanta ee basketballku ay galabta halkan ku soo bandhigayaan galabta waxay noo tahay barbilow fiican waxaan rajayn doonaa haddii alla idmo inaanu sameeyno kooxo ciyaaraha kubadda basketballka ee degmada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool marka waxaan rajayn doonaa haddii alla idmo in dhalinyaradu ma garanaysaa ay xiisayn doonaan kubadda gacanta ee basketballka waxaan ugu baaqayaa bahda xiisaysa kubadda gacanta ee basketballka in garoonkii furan yahay runtii waxaan uga mahadnaqayaa gacanta balaaran ay naga siiyeen in garoonka dib u habeyn iyo dib u shaqeeyo dawladda hoose ee degmada Laascaanood ugu horeeyay maayirka degmada Laascaanood oo markasta xiiseeya in kubadda basketballka ee gacanta lagu ciyaaro garoonkan galab kastana heegan ugu jiro inuu halkan yimaado aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Laascaanood iyo dhalinyaradii ku ciyaaraysay garoonkaasi ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan in dib loo furo garoonkii kubadda kolayga ee magaalada Laascaanood dhalinyarada sportiga ah ee galabta halka waqtiga ku qaadanaya hadii aad arki jirteen Laascaanood oo laga ciyaaro kubadda cagta kubadda kolayga iyo gacantana waa laga ciyaaraa waqtiyada nasashada halka barnaamijna oo aan ku ciyaarnaa dhalinyarada danaynaysa iyo kuwa u baahan inay jimicsaanba waxaan leenahay waqti halka ku qaata kaalay kubadda kolayga ciyaara waan uga mahad celinaa dawladda hoose ee degmada Laascaanood sida ay u dayactirtay iyo maayarkaba waxaan leeyahay dhamaantii guul baa idin rajeynayaa galab wanaagsan dibadayactir weyn ku sameeyeen maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyo dawladda hoose waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maayarka sida buuxda ee uu garab taagan yahay dhalinyarada gobolka Sool ee danaynaysa kubadda baasidka waxaan kaloo ugu bishaareynaa dhalinyarada jecel inay kubadda baasidka ciyaaraan inuu garoonka furan yahay annaguna aanu nimaadno galab walbana daawano maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwade ayaa sheegay in mar kasta ay diyaar u yihiin horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha aanu joognaa garoonka kubadda gacmaha ee magaalada Laascaanood oo runtii galabta ciyaartii koowaad lagu qabtay farxad gaar ah noo tahay kamaayar ahaan iyo goladegaan ahaanba iyo dowladda ahaanba in garoonkii aanu dhisnay in maanta midhiisii la guranayo ciyaarihii ugu horeeyayna lagu bilaabay runtii waa war farxad leh isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Sool waxaan uga mahad celinayaa in ciyaaraha in badan ka wada hadli jirnay in galabta la daafuray oo la bilaabay isuduwaha waxaan ku rajeynayaa insha Allah in garoonka noqdo garoon mar walba shaqeeya waxa dhalinyaro maanta ka soo qayb galay ee halka ku ciyaaraya qaarna daawanayaan kuwa daawanaya kuwii mustaqbalka birito gobolka Sool iyo goboladanba tartanka gobolada ugu qayb gal lahaa iyagoo kuwa la fayda marka waxa weeye waa guul waa arrin aan u qaadnay xagga hore iyo xagga horumarka waxaan leenahay kolay markii wax bilaamayaan wax way iska adkaadaan waxaan leenahay aniga jabina maanta qurba joog iyo qolqol joogba garoonkii inoo furan yahay qoliyaha qurbaha kii waxaan leeyahay garoonkiina inta joogtaan uga faa'iideeyay dhalinyaradiinu inay kubadda baasketballka iyo volleyga bayna bartaan baan isku boorinayaa aad iyo aad baan mahadsantahay in kastoo ciyaarahan soo qaabisay waan uga mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa suxufiyiinta waliban qaranaga joogo oo maanta waqtigoodii shaqada iyo maalin jimcaad tahay nasashada ay ku jireen inay halka ka ciyaaraan oo runtii ay kubadda ciyaaraana farxad gaar ah noo tahay